السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي wanaagsan idilkiinba saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan waa mar kale iyo Mustafa Show waxaynu ku guda jirnay sheekadii jacayl ee taxanaha ahayd ee simikaarkii Najma qaybteedii labaad ku soo dhawaada waxay ahayd in uu ku celiyay wiilkii mar kale Najma telefoonka markii ay ka dhigtay assalaamu calaykum wa calaykum assalaam ayay Najma ku jawaabtay walaal simikaarka waan kuu soo diraya haddii eebba idmee waxaad tahay gabadh wanaagsan oo cod macaan sidoo kale si asluub leh ayaad iila hadashay simikaarkaaga waan kuu siin doonaa laakiin waxaan rabaa inaynu isbaranno sidoo kale aynu wada hadallo haddii ay suuro gasho waxa ay Najma tidhi dhibaato ma leh iyo hawraarsan ayay ugu jawaabtay markaan codkeedu waxa uu igu beeray naxariis iyo xasilooni waxaad neecaw qabu muddo ayaa isaaqday dhegta ayaa ku raaxaysanaysa codkeeda maskaxdana waxa aad moodaa inay ku miirsanayso wadnaha garaaciisa ayaa laba jibaarmay wax ku dhacay anigu ma aqaano malahayga hormoono jacayl loogu talagalay ayaa dareen wadayaasha qalbigayga gilgilay Najma si wanaagsan ayay maalintaasi ila hadashay laakiin marna meesha ma aanan soo dhigan inaan dareen baaxaddaasi la u qaadi doono iyada oo aanan weli arag hase yeeshee codkeeda iyo sida ay igu sheekaynayso ayaa igu kalifay inaan sawirto muuqeedu nooca uu ekaanayo ama qof ahaan sida ay tahay sawirka Najma qalbigayga ku dhex nool waa Najma aniga ii khaas ah ma aqaano farshaxamiistaha suuradaasi maskaxdayda iyo maankayga ku xardhay laakiin waxaan aaminsanahay in waxaanan anigu arkin uu sawirkaasi maskaxdayda ku beeray sida ay ii saamaysay markii aan muddo ka fekerayay ayaan tixdan gabayga ah maskaxdayda ka curiyay maskaxdaad qol idil iyo qasri weyn ku leedahay wadnahaad qafaashood quful adag ku xidhato qalbigaad badh leedahay maankaad ku qoran tahay codkeeda ayaa nafta jal uga dhigaa saacad haddii aanan iyada la hadal ma qumani iyada lafteedu ilbiriqsi kasta inaan la hadlo ayay jeceshahay annagoo aan kulmin ayaanu bilo sheekaysan jirnay waxaanu isku qaadnay dareen jacayl oo aan la qiyaasi karin halbeeg lagu cabirana aan lahayn waanu kaftanaa sidii laba weligood is yaqaanay waxaanu u sheekaysanaa sidii laba is horfadhiya waxaanu isula faraxsannahay sidii laba weligood wada joogi doona muuqeeda maan arag midabkeeda maan baran nafta muhashadeeda iyo muxibada qalbiga taal mugga baaxaday tahay male kuma astayn karo shakhsiyan waxaan ku qiyaasay inay tahay gabadh da'yar oo dhallinyaro ah hadalkeeda habfikirkeeda iyo sida aanu isu fahmnay ayaan markhaati ka noqonaya da'da ay jirto maalmo kooban markii aanu inantaa wada hadlaynay ayuu xidhiidhkeenni xoogaystay waanu isdhex gallay labadeennuba waxaanu isku waraysannay si hoose nolosha iyo taariikh nololeedkeenna aad baananu isugu qanaanay habka aanu u wada sheekaysanno waxaanu isu bognay maalinba maalinta ka dambeysa ayuu xidhiidhkeennu hawada ku sii laalmay amaba sii laba kacleeyey maalintii iyada aanu isbarannay markii ay ka soo wareegtay isbuuc ayaan wacay gabadhii adeerkay dhalay ee simikaarka iyadu magaalada Burco iga soo dirtay waxaan uga warbixiyay simikaarka ay siisay iyo sida la igu qabsaday markii aan u sheegay inay gabadhi soo wacday simikaarka rabto ay igu jawaabtay in adeer gabadhu way qurux badan tahay mad ku qabsatid in adeer waa gabadh qurux badan mad ku qabsatid anigu gabadhii hore ayaaban ugu qabsaday laakiin adeertay waa yahay baan kaga baxay umana aan sheegin gabadha uu xidhiidh noo bilowday intaan hadalkeedii dhegaystay ayaan haye ugu soo koobay sidii aynu gabadhii muddo u wada xidhiidhi jirnay xiisihiina oo isu qabnaana uu sii siyaaday dhinaca kale fasaxaygii dugsiga ayaa aad u soo dhawaaday haddii aan degmadeedii ku laabto jacaylkaygii ama Najma ma soo wada hadli doono sababtoo ah xilligaasi degmadayadu ma aysan lahayn adeegga khadka telefoonka haddii aan Hargeysa ka tago waxaan noqon doonaa dhagool aan cidna la hadal dhinac waxaan ka ahay arday oo kama joogi karo inaan waxbarashadeedii sii wato dhinaca kale kama joogi karo xiisaha Najma ee igubaya arrintaydu waa laba daran mid dooro inaan waxbarashadeeda joojiyo si aan Najma ula sii hadlo iyo inaan Najma codkeeda ka qado si aan waxbarashadeeda u sii wato waa go'aan aad igu adkaa laakiin tan dambe ayaan qaatay ee aayahayga ah inaan dhiso oo waxbarashadeeda sii wato waan jeclahay sidoo kale qorshaha dhisitaanka aayahayga ayay Najma kalmaha ugu horeeya kaga jirtaa caqabad weyn ayay la soo diristay 2 bilood ayaa ka soo wareegtay maalintii aanu Najma hawada iska barannay fasaxaygii iskuulkana waxa ka harsan bil wax ka yar
bishaasi wixii ka dambeeya waa inaan hawada ka baxaa maxaa se dhici doonaa su-aashan markii aan isweydiiyo ayaan cabaar fikiraa jawaab waafi ah oo aan karka maskaxda ku qaboojiyo ayaan raadiyaa balse waan waayaa walwalka ayaa igu sii bataa riyooyin naxdin leh ayaan la kulma anoo najmo waayey iyadoo la guursaday iyo weliba siyaabo kaloo noloshu way badan tahay ay wax u dhaceen waxaan isbarbardhigaa labadayda nololeed ee najmo la-aanteed iyo nolol najmo leh macaan badana nolosha ay najmo ku jirtaa waa nolol farxad iyo raynrayn iyo deganaan leh waa nolol xaalad iyo xamaasad leh nolosha aysan najmo ku jirin waa nolol mugdi ah iyo murugo iyo walwal xambaarsan xiisaha najmo isku qabna xadhkaha ayuu goostay oo xadkii ayuu dhaafay telefoonka aan qabsado marka uu gabalku dhaco waxaan dhigi jiray waagu kolka uu halkaa ka soo cadaado ma aanu kala daali jirin maalintii saacad ayaan u wada xidhiidhi jirnay kolka ay dugsiga aado kolka ay guriga joogto kolka ay cunto samaynayso iyo kol kasta iyada waxaa madadaalo u ahaa codkayga aniga maadaama aanan shaqo kala haynin waxaaban ku raaxaysan jiray la sheekaysiga najma sahrada jacaylkeeda ayaa maalinba maalinta ka dambaysay si tartiiba jidhkayga ugu fidayay haatan daroogo kale oo balwad ah aan ka dhigto uma baahni sababtoo ah balwadaydu waa iyada waa tuma waa najma xilligaasi waxaan aaminsanaa haddii mid ka mid ah xiisaha xididadayda dhiigga la jeexo in loogu tagi lahaa magaca najma oo ku xardhan halboloyaasha dhiigga ama goobaha dhiigga uu jiifo wakhtigaasi qof ahaan ma aanan oqonin aaladda facebook ah dadka badankiisana kala mid ayaan ahaa arrintaasi facebook waxaa adeegiisa yaqiinay dad kooban sidoo kale xiiso badan looma hayn maadaama aada loo adeegsan jirin sidaa daraaddeedna waxaa adkayd inaanu kala helno sawiro manay jirin wax la yaaba post office ama goobaha adeega la isugu gudbiyo ee la isugu diro oo aanu sawiro isugu diri karno habka kaliya aanu sawiro u kala heli karno ayaa ahaa inaanu baabuurta u kala baxaysa magaalada Hargeysa iyo magaalada Burco ee isaga kala goosha isugu dhiibno hadiyadaha iyo sawirada iyo waxyaalihii kale aan isugu talagalno nasiib wanaag waxaa isla maalintaasi magaalada Burco safar shaqo u aadayay wiil Sacad la dhaho oo aanu qaraaban nahay hay'adna u shaqaynayay si degdeg ah ayaan u baxay waxaan u tagay suuqa si aan ugu soo gado hadiyado khaas ah oo aan najmo ugu talagalay sidii caadada ahna waxaan ku soo xardhay alaabooyin qurux badan ayaan dusha kaga soo xidhay waxaa kaloo aan hadiyada raaciyay sawirkayga iyo buug yar oo kooban oo leeyahay notebook oo loo yaqaana buugaasi waxaan ku qoray muddo 7 ah ama 7 maalmood gudahooda buugaasi waxaan ku qoray qoraallo jacayl geeraaro sawiro farshaqmaysan oo ka kooban wadnayaal iyo waxyaalo kale oo qurux badan oo aan isleeyahay qalbiga najma waad ku sii degi kartaa alaabtii waxaan u dhiibay wiilkii kadibna waxaan isku raacnay istaanka baabuurta ay ka baxaan ee magaalada Hargeysa waan sugayay ilaa iyo baabuurkii la rakaabiyay oo uu buuxsamay ama uu ka dhaqaaqay magaalada Hargeysa waan macasalaamay sidoo kale waxaan kula dardaarmay in alaabtaasi ilaaliyo sida ay tahayna u gaarsiiyo boqorada oo qalbigaygu calanka sudhay waa hagaag markii uu sawirku gaaray najma maxay ku soo jawaabtay simikaarkii najma sheekadeennii la baxday oo qoray Mustafa Atam oo aad kala socoteen Mustafa Show intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa qaybteedii labaad haddii alla awoodil xaggiisa laga helo qaybta saddexaadna si dhaqsa ayaan idinku soo gudbinaya haddii aad wax dhaliisheen ama waqtigeeda idinku gaabmay oo aad u baahantihiin inaynu mindada ka wada hadalno ay sheekadu soconaysana ila soo shargareeya aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh